السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada barkale iyo mid kamida barnaamijyada idinku tala galnay maanta oo axada taariikhduna ay ku beegan tahay 27 bisha Abriil sanadka 2025 waa barnaamijkeennii subaxnimo waa barnaamijkii ugu horeeyay barnaamijyada aynu maanta idiin soo gudbinayno haddii Allah awood leeyahay ka raali noqdo qodobada barnaamijka saakayaan idinku hayno waxaa kamid ah Hamas oo sheegtay wafdigeedii ku sugnaa magaalada Qaahira inuu dib ugu laabtay magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Haddaba maxay halka kala soo kulmeen hindisihii ay wadeen oo aan barnaamijyadeedii hore ku soo gudbiyay ma laga aqbalay mise wali waa halkiisii sheekadu halkee maraysa maxaa ka dhacay Qaahira saacadihii la soo dhaafay warbixin baan idinkaga hayaa waxa soo kale aan barnaamijkeedii kugu soo gudbin doonaa Mareykanka oo la sheegay in uu markaa duqeymo ku qaaday markab ay Israa'iil leedahay sidee wax u jiraan xaaladda bariga dhexe gaar ahaan badda cas ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa iyo Israa'iil oo sheegtay inay ka hortagtay gantaalo ka yimid dhanka Xuutiga saakay aroortii oo axadda ahaa haddaba sheekada iyana waan idin faahfaahin doonaa wixii ka soo kordha barnaamijka ayaanu markaa aanu intaan ku jirno ayaanu si fiican idinkugu faahfaahin doonaa waxaa sidoo kale barnaamijka aynu ku soo qaadan doonaa tirada dadka ku dhintay qaraxii shalayto ka dhacay dekad ku taala dekada ugu weyn ee Iran oo la sheegay tirada dadka dhintay inay kordheen oo markaa dad fara badan imika ay halka ku dhinteen iyadoona laga baqayo dad kale in markaa ay dhimashadu kor u kacdo ayaa la filayaa sida la leeyahay haddaba qodobada aynu barnaamijkeena ku faahfaahin doonaa waxaa soo kale aan idin hayaa ninkii Trump ahaa oo sheegay in uu iska isticmaali doono isagoo aan wax canshuura bixinin kanaalka Suez ee Masar iyo kanaalka Panama haddaba sheeko la yaab leh iyo masaarida oo saakay guux fara badani gudaha wadanka uu ka jiro in xoog lagu mari doono iyagoon wax canshuura la siinin kanaalka Suez sheeko la yaab leh oo arrinka ku saabsan in barnaamijka ku intaan barnaamijka ku jirno wixii warar soo kordha waan idin socodsiin doonaa haddii aad nagala socoto Nadaara Show oo aad doonayso barnaamijkan oo dhammaystiran inaad hesho u soo wareeg Nadaara TV waxaan sidoo kale kuu soo dhigi doonaa linkiga qaybta commenteska ama fariimaha qaybta ugu koreysa fariimaha ayaa ku dhufanaysa kadibna toos ayaad barnaamijkan iyo xogihiisa u daawanaysaa inta aan mar kale kulmayno nabadgelyo